talo dumarka taan la guursan karin waatay waxaan u maleynayaa inuu raygayga markaan eego tacarmalka malaha talaga soo horeeyay wala soo fikir jabiyata mid kale ina iska guursatay yar way kafta wanaagsan waxa dhii sheegaysaa dumarka mid baan la guursan karin talo dumarka taan la guursan karin dumarka kamidii waatay waxa ugu guriyay dumarka anigu de gabadhan la guursan ma arag laakiin gabadh curiyaanta hadii de curiyaantahay oo liba ama aan kula diinahayn laakiin ma garanayo miskala la guursan waa tay ugu horreey waan soo dhaweynay walaalo ku soo dhawow telefishinka caalamiga Kalson TV adigoo bilaabaya magacaaga galab wanaagsan ma ku leeyahay magacayga waxa la maxamuud ibrahim cismaan وحوين أرتع وميح في العيا ميكسكو الكريم وتقبل الأمر وشتاع الوسقل بلي مشيع النبي أحلو قصورة يلا مشيع النبي قفقو هو قبطه إلهي نسعى الأمعر خير وكم رأسع الجبارة والنفعل كرت عن المسيقل أيها نحلقوا يا الغوة والله ساوي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waa tay ugu horreey ugu soo dhaweynaya ku soo dhawow barnaamijka kaftanka Kalson TV walaalo adigoo ku bilaabaya magacaaga kaftan wanaagsan iyo casri wanaagsan ma ku leeyahay waayahay anigu magacayga Axmed Cabdikariim weeye waan dhawahay walaal Axmed waxa dhii sheegaysaa dumarka mid baan la guursan karin talo dumarka taan la guursan karin dumarka kamidii waatay anu waxaan qabaa gabadha habaarka badan leh isla sheegay gabadhaas ma la guursan karin inta kale la guursan karin gabadha habaarka badan leh ma guursan karo taasaan ka baxaya waa tay ugu horreey ugu soo dhaweynaya ku soo dhawow barnaamijka kaftanka Kalson TV adigoo ku bilaabaya magacaaga waxa la yiraahdaa Xuseen Reebo la yiraahdo Xuseenow su'aal baan ku weydiinaya diyaar ma tahay hadii aad garan weydana hadaan garan weyno waad iga saxunte waxa dhii sheegaysaa dumarka mid baan la guursan karin talo dumarka taan la guursan karin waatay waxa weeye wallahi loo yaqaan dacwada هريو قرالة رجيو قرالة فك علامة عنتي قويش يكون عنت مارس يا لا يقرسنو لا بقوا أنا تصور واستا هديك لا انتهى القوة ده والله قال عدد بحوي والله واحد ميلونا فيهم كلامي ويني ولا الله كسر دوا برنامج كفتن كالسون تي في أديكوا كبلا بين مجاعة وقرر حكوا لي كفتن وناكسن ويم مجاعة فرحان أحمد نور تي في أنا وقبل وهاي سؤال شاسنو حويه أنت أنا الجورسن كرين وحويه لبلبيبك بقولي تلفزيون عالمي كالسون تي في برنامج كيسي كفتن كالسون تي في هذا وكلا بين مجاعة عبد القادر شاس معلوم مجاعة له هنا عبد القادر ما دام برنامج كفتن كي هاي محد كلمة كفتن هالكن كورن هاي وكورن لها إن كل دي أدو كفتن كا كلمة كفتن كا هالكن عندك هذا كل ده كم وده رالي قلني لكن أنا نظر شيء وهي وسورة إكسرافي وحده لها وضد عين بنينا فاتهم ما صدق أحد يشيء سا دمرك متبان لجورسن كريم ترى دمرك تعال لجورسن كريم دمرك كوتشرته واتي دمرك وحال لجورسن كريم أنا مرة رأي جامعة عبروا كل دمرك تعال لجورسن كريم وطلع دقة معنا والله يا وهي جامعة هذه القامة دي لما جورسن كريم ما صدق oo ku soo dhaweynay ugu horreyn walaalo ku soo dhawow telefishinka caalamiga Kalson TV adigoo ku bilaabaya magacaaga waan soo dhawow marka hore magacaygu Wafid Xaaji Maxamuud magacaygu Wafid Xaaji Maxamuud farxi ugu horreyn waxaan ku leeyahay kaftan wanaagsan maadaama barnaamijka kaftanka Kalson TV waxaad ii sheegaysaa dumarka mid baan la guursan karin talotaan dumarka la guursan karin waatay waxa weeye gabadhu marka ninku soo furay maaragtay gabadha marka waxa jirtay gabadh mari cadad ba ilaa way cadad baxda waqti loo qabtay ilaa muddo 3 bilood ah marka waxa weeye gabadh marka la guursay la soo furo markaas la marka inta cadad baxaysa la guursan karin waa tay ugu horreey ugu soo dhaweynay walaalo ku soo dhaw barnaamijka ka baxa kaftanka Kalson TV adigoo ku bilaabay magacaaga على عبد الله حسن أحمد واحد يشيء dumarka mid baan la guursan karin talo dumarka taan la guursan karin dumarka kamidi waatay taan la guursan karin waxa weeyaan tasmini gowdida waa tay ugu horreey ugu soo dhaweynaya ku soo dhawow barnaamijka kaftanka ka baxa Kalson TV adigoo ku bilaabay xaaji magacaaga Xuseen Maxamed walaal Xuseenow waxaad ii sheegaysaa dumarka mid baan la guursan karin talo taan la guursan karin dumarka ku jirta waatay لو بحالتي تير رسولك لما ترسل هذا الجزء كم نوع اسمه الجزء ها تصل الجزء دمر
tahay ugu soo dhaweynay ugu horreyn walaalo ku soo dhawow barnaamijka kabtanka ee ka baxa Kalsan TV adigoo ku bilaabaya magacaaga farxaan maxaa warsoo leedahay farxaan su'aal baa ku weydiinaya waxaad ii sheegaysaa dumarka mid baan la guursan karin talo dumarka taan la guursan karin waa tee waxaan malay markaan gabadha cadad bixinay tahay gabadha markaan cadad bixintay waa tahay ugu horreyn ku soo dhawow telefishinka caalamiga Kalsan TV barnaamijkiisa kabtanka Kalsan TV adigoo ku bilaabaya xaaji magacaaga aniga Cabdi Ibrahim Maxamed baa la yiraahdaa cabdi oo su'aal baa ku weydiinaya diyaar ma u tahay waxaad ii sheegaysaa dumarka mid baan la guursan karin talo taan la guursan karin waa tee waxay la tahay wixii sharciga islaamku diido inay tahay ama hooyada ama walaasha ama hadee beed ma intii sharciga da islaamku yaala intii xarantimeeyeen ilaa yeeyada waa badiyay ilaa 8 iyo meelaha si ka koobay kuwaas la guursan karin intii sharcigu diido ma la guursan karin ma santay